Soomaaliya waa dal dagaalo sokeeya muddo sanadooyin ah ay ka soo socdeen dad badan ayaa ku dhintay qaar kalena dhibaatooyin badan ayaa loo geystay welina waxa ka taagan amni darro iyo xasilooni la'aan siyaasadeed haddaba su'aashu waxa weeye ma la iscafin karaa mase fududahay munaasabad loogu magac daray maalinta cafiska Soomaaliyeed ayaa galabta lagu qabtay beerta nabadda ee magaalada Muqdisho oo la sheegay in looga gol leeyahay inay dadka Soomaaliyeed isku cafiyaan haddaba waxa si toos ah khadka Muqdisho ku jirta Sahra Cali Shariif oo iyadu kamida ururka cafis Sahro ku soo dhawow BBC London Sahro may maqlaysaa si wanaagsan Sahro barnaamijka ku soo dhawow bal waxaad nooga warantaa xafladii maanta iyo bal waxa idin qabsoomay urur ahaan ilaa hadda barnaamijkan wuxuu socday dalka ka socday muddo 3 sano ah waa barnaamij aan ugu talagalnay inaan iskugu keenno qulubta ummadda Soomaaliyeed oo la kala dantaaliyay muddo 30 sano ah waxyaabaha ugu wanaagsan oo inoo qabsoomana waxay tahay in ummad Soomaaliyeed oo fara badan ay ku daydeen waxaan annaga aan u keenay oo si dhab ahna ay isku cafiyeen ma xumayn Sahra in qulubta la isu keeno laakiin se wali dadkii dhibanayaashii iyo dadkii wax loo geystay ee dhabtaha wali meel ma isugu keenteen dadkii Soomaaliya joogay Muqdisho ma joogaan dadkii ma u tagteen ilaa hadda maxaa la taaban karayaa oo qabateen waxyaabaha aan qabanay waxa ka mid ah waxaan horta barnaamijka cafis aan ka qabanaa waa dhamaan daafaha dalka oo dhan waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan taaban karna waxay tahay waa kiisas fara badan annaga oo documentary aan ka sameynay aan u soo bandhignay ummadda si maanta oo kaleeto oo wiil Cabdiraxmaan la dhaho eedadiisa ka jartay gacmaha labadiisa gacmood ee maanta ku cafiyay oo uga faa'iideystay munaasabadan 28 Juun aan ugu magac darnay maalinta cafiska ummadda Soomaaliyeed waxaan kaloo soo wadnaa barnaamijyo fara badan oo isla cafiska ah ku baraarujinaya Soomaaliya waxyeelo dad isku geystay oo iska cafinayo oo bulshada horteedana aan isku cafinayaan si ugu daydaan dadka inta badan oo dhibaatada haleeshay iyo kuwa geystay waan gartay Sahra way fiicantay Cabdiraxmaan iyo dadiina iscafiyaan ma xuma laakiin Soomaalidu arrimaha isku hayaan arrimahaas ma laba qof oo iscafiyay maaha waad ogtay arrimo waaweyn baa la isku hayaa dad baa dad u nacab hab qabiil ama hab kale hab qabiil baa Soomaalidu wax isugu geysatay ama hab siyaasadeed arrimaha aad ka hadlaysaan ee arrimaha Soomaaliya ka taagan soo lama oran karayo waxoogaa in yar khiyaali ayaa ku jiri karta khiyaali kama jiri karto siyaasad waa gooni laakiin cafis annaga waxaan u keenay ummadda Soomaaliyeed inay ummadan ay ka madax banaanaadaan siyaasadda ay waxa ay wada leeyihiin ee kaliya ay yihiin calankan iyo dalkan iyo dhulkan wax walba oo dhibaato lagu soo dhex abuurayna ay iska cafin karaan oo wax allaal wixii siyaasadna ay rag ay quseeyaan oo annaga ay noo xilsaarayeen laakiin annagana naga faa'iideysanin in qabiil iyo noo kala qolo si aan annaga isku dayacno oo dana gaar ah noo adeegsado haddaan nahay dhalinta Soomaaliyeed waxaan annagaan ku baraarujinaa bulshada Soomaaliyeed waxay tahay inay ayaga dalkan ay leeyihiin mustaqbalka dalkuna ayaga uu yahay aanan anficaynin in la kala qabiileeyo si qulubtooda la kala geeyo Sahra wad ogtay hadallo waaweyn oo badan oo fiican oo Soomaaliyeed waa la jeediyaa 30 sanadood in qulubta la isu jeediyo la siimato laakiin sidee loo xalinayaa dadka imka markaad aragto qof qabiil dhan nacab ama isir dhan nacab ama meel ummad dhan nacab ama bad way jiraan dad iyagana dhibaatooyin loo geystay waxyaabahaas inaad ka hadashaan oo aad tacab badan la galiyo loo maro dariiq dheer miyaan ahayn baraha bulshada iyo shirarku miyaan oran karin arrimahaas kama turjumayaan waa mahadsan tahay waxyaabaha annaga aan qabanno way ka mid tahay oo waan isku keenaa bulshada oo hal maalin kaliya kama shaqeyno oo waxaan u nahay wariyaal aqoon-yahano iyo dhalinyaro oo isguruubaystay oo ku tashaday inay dadkan ay bedelaan kaliya munaasabada kuma ekaan doonto 28 Juun hordhacyo barnaamijyo ayaa jiro aan annaga aan sameeyno aan oga hadalno oo waliba ficilo dhab ah aan u soo bandhigno laba qof oo iscafinaysa si ugu daydaan ummadaha kale waad mahadsan tahay Sahra Cali Shariif oo ka socotay ururka cafis